السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان داودياشا قيمها iyo ixtiraamka in laga mudano caalamka meel walbo aad ka joogtaan iyo xilli walbo idin tahayba waqtiga haydin wacnaado waayahana idin samaado waa walaalkiin Cabduwahab oo idin leh maalin kale iyo muuqaal horle waad ku mahadsantihiin la joogiina ka soo dhinac muuqashadiina iyo ku xirnaantiina channelka intaba waan idinkaga mahad celinayaa haddii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aad nala kulantana subscribe saar kan baleelkana furo si aad mar walba uga mid noqoto saaxiibada sida dhow inoogu xiran haddii aad hore inooga mid ahaydna aad baad u mahadsan tahay maanta waxaan inoo hayaa muuqaal run ahaantii qaamihiisa wata qaamihiisa sidaan u ognahayba waxa muuqaalkani quseeyaa sida timeline ka soo aragtay Sharma Boy iyo xaajidiisa Malyumaanka miyay ishayaan miyay isku dhagan yihiin miyaa lagu dhagan yahay waa arrin markaasi aad isweydiinayso ana kaaga jawaabi doono iyo ogolow in aan horta marka ugu horeysa ka daba geeyo mowduuca si aad u fahanto oo aan xagga dambe u noqono kuwa isla fahamsan oo falanqeyn kara ama ka wada hadli kara inta ay doonaan muuqaalkani waxa uu quseeyaa sidaynu ognahay social media mar ayaa waxba la soo dhigdhigaa marka Malyumaanka ayaa fiidiyoyo waxa la arkay ee kali ku tahay maadaama ay dalka Mareykanka wada joogaan iyadana sidaynu ognahay ee ku soo gashay jaflaysi isagana uu ku galay fiisa markaasi ay u sameeyeen dad cadaan ah marka sidaa darteed in ay meel guri ah wada dagaan waxa ay ku xiran tahay in ay marka ugu horeysaba ogolaanshiyo in ay ku noolaan yani in sharcigii weynaa ay helaan ayay hawshooda ku soo bandhigan karaan hadaba waxa jirtay dad ayaa waxa ay la yiraahdeen markii ay maalmihii hore isku arki jireen markii ay waayeen kadib ayay waxa ay yiraahdeen Malyumaanka waa uu ka daldoorsaday Sharma Boy waan war ka tagay sidaas darteed in badan waxaanu aragnaa hadana inay dib ugu soo noqotay iyadoo markaas dadka xun u muujinayso in ay wili xaaladda jirto oo ay maanta Sharma Boy wili oo nolosheeda u yahay isagana noloshiisa ay iyada tahay حقيقة مركا فيديو واحد جرى مركا Sharma Boy أو أي صور قشتي تيك توك جدا لكن مركاسي أنا جا واحد إنه وش شيء جاي وأنت مركاسي دبص عطو واحد وش شيء جاي برضو مركو جوري سوحن يديسو دين دونا هست عجائب كله أو مركاسي أو كسورين يا أما بقى وكعبر يا جعلك أو مركاسي Malyumaanka أو قبل مركا كدب ونسكو صلابان دونا وحي وربحنا أنا حاجة تنبأيان كودا فلانقين دونا بلدا وشوعان labadeennu iskelno waan isoo hilownayo jacayl buuxa hana qaado sidaan kugu hagar baxayba adna ilahaysa heeduway ku doonto mahawaysto ruux kalo adayku haweyntayo haniyo dharartiwa awada hadaqa sidaa soo aragtayba heestani waxay si guud markaasi ay u soo dhigatay TikTok-geedii iyadoo markaasi calaamad iyo cadeynba ka dhigayso inta ay jeceshahay in la mid ah ama ka badan inuu Sharma Boy uu jecel yahay in badan waxay dadka suuqa soo gelinayeen oo muddooyin fara badan ba ay cagta u saarayeen in lamaanahani ay nolosha isku faarujiyeen horay sidaas darteedna ay maanta jirin wax damba ay isku soo laaban doonaan maadaama ay intaas iyaga naftooda iska dhaadhiciyeen laakiin taa kadib waxa ay arkeen iyagoo markaasi ay Malyumaanka mar qura barlamood mar la soo suuq galiyay in ay iyada la qabtay oo la xiray Mexico ku xiran tahay dib hadana uga soo hadashay Kenya dhaxdeeda waa waqtiga ay markaasi aynan ku jirin rajada amaba arrinka ah in ay tagto laakiin ay ku guda jirto in ay markaasi processka ay ku bixi lahayd ay diyaarsanaysay laakiin dadka way iska soo hordhaceen oo waxa ay sheegeen in ay Malyumaanka ay xiran tahay inta kadibna geesinimo dheeri ah oo ay muujisay ayaa waxa ay sabab u noqotay in ay baxdo oo ay markaasi jaflaysi gasho tagtana dalka Mareykanka mar qurana lagu arka fiidiyowgii ugu horeeyay oo markaasi laga arka Malyumaanka iyadoo markaasi meel qabow ah baraf ahaan u muuqdo dhulka oo dhan oo barafaysan yahay iyadoo gaari dhax saaran laakiin aanan hadlaynin oo aanan hadlin ayay soo muuqatay intaasi dad badan waxa ay markaasi u arkeen meeshan roobka yani barafka ah da'ayo meesha uu yahay wax yar kadibna waxa soo ifbaxday in ay iska dhiibtay ama ay ka dagatay dalka Mareykanka oo ay darbigii dheeraa oo dad badan oo raga
ay maanta weli ka baqanayaan ay u bareertay si ay u gaadho ama ugu tagto jacaylkeedii Sharma Boy nolosheedina ay meesha ugu sii hanqaadaan maadaama uu rajadii Afrika u lahaa Sharma Boy ee gabi ahaanba soo idlaatay oo markaasi ay soo baabaaday go'aanna uu ku gaaray inuu ku noolaado abid dalka Mareykanka oo markaasi uu u arko in ay ka wanaagsan tahay nolol ahaan iyo horumar ahaan meesha uu markaasi ka soo hayaamay ee Soomaaliya intaasi kadib waxaa soo ifbaxday in ay markaasi kulmad waqti dheer kadib in ay kulmaan fanaanka iyo fanaanada iskuna noqdeen oo la arkay iyagoo markaasi iska soo dhinac muuqdo aadna isugu marxabaysiinayo noloshana wada wajahayo oo markaasi si qurux badan xaajadooda u bilowday dad badan waxa ay ku farxeen isku soo noqoshada labada fanaan halka dadka qaarna ay ka xumaadeen isku soo noqoshadoodii oo waxa ay bilaabeen dagaal hoosaad runtii qofkii caqli leh uu fahmi karo in lagu kala geeyana la isku dayayo in badan oo kamid ah waxa ay markaasi ay ku dadaaleen sidii ay isugu diri lahaayeen inay isku diraasa waxa ay ku qaadanaysay in ay helaan qof kamid ah oo iyaga taageera ama dhageysta waa labada fanaane si kastay sameeyeen wada kastay mareen qardajeex kastay galeena waa ay ku guuleysan waayeen inay qalbi ahaan soo xaadiriyaan mid ahaan si ay gacanta ugu dhigaan oo u adeegsadaan inuu kan kaleete weerara ama oo markaasi hadal xun ka yiraahdo si kasta way dhacday way sameeyeen waa ay gaari waayeen ugu dambeyntii waxa ay markaasi go'aansadeen dhammaan iyagoo markaasi aanan u kala harayn in ay يعني هذا waxa ay bilaabeen ay hadana dib u soo nooleeyaan taasi oo ah in ay samid ahaan usan markaasi ayna wada nooleen fanaanka iyo fanaanada taasina ay marqaati u tahay in aynan iska soo dhinac muuqanin oo gabi ahaanba nolosheedii oo ka fogaaday xaaladaha adduunyada mar walba waa isbedeli karaan oo sida aad moodayso wax ma ahan waxa dhici karta in Janice la isku heli waayo waxa dhici karta marmarka qaar in adigoo aad jecel qofkaagana aad fursad u weydo oo aad kula kulanto waxa ay tageen nolol ka bedelan noloshii markii ay hore ay ku noolaayeen intaasi kadib dadka waxa ay doonayaan sida ay shalay dadkan isku ahayeen inay mar walba isku hadaan in la iska soo dhinac muuqdo in la isla dhinac taagnaado in wax la isla doodoowo in la kala ordo in la isku soo ordo waxaasi oo dhan waa fursad markii aad hayso waxa iman karto nolol markaasi xumaani ayna ku jirin laakiin idin kala irdhayn karto oo idin kala fogeyn karto ama fursad idin kugu diidi karta aad ku kulantaan waxaasi oo dhan lagama fikirin waxa laga fikiray oo kaliya inay xaajada markaasi ay tahay inaysan isdoonahayn inaysan dan iska lahayn iyo waxyaabo qaar dhamid ah si kastaba ha ahaato nolosha waxa ay leedahay wajiye ka duwan kuwa aan anaga maleysanayno inta xunna mar walba waxa ay diyaar u yihiin in ay dadka kala fogeeyaan halka ay dadka iskaga soo dhaweyn lahaayeen Sharma Boy iyo Milyamanka waxaan idin leeyahay noolaada oo jira muligiinba waxaan ahay garabkiina waxaan noqon doonaa garabkiina hadaynu sirri cad nahayna mar walba waxaan idinku taageereynaa wanaag waxaan idin la dhinac taaganahay ubax waxaana mar walba idin leenahay hore u socdo ha dhageysanina maangaabyada aan maskaxda badan lahayn ee markaas isku dayay in noloshiisa baabiyaan guuleysta reer siriicad waxay kula tahay in wada la wadaagi doontaa xagga commentiga ayaa ku cidlaa waana ku daayay halkaas ayay igula wadaagi doontaa inta aan muuqaalkan mid xiga aan ku kulmi doonana waxaan dhamaantiinba idinkaga sii tagayaa nabaadiino